ربي بوحدات وذا التغنيني إساقا ودود عن تشيغا لا وذا غيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaanu ka hadlaynaa casharo taxana ah oo magacyada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan marba magac uga hadli doono oo aan ka hormarinayno dhowr cashar oo horodhac ah oo inta aanan guda gelin sharaxaadda magacyada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan ka hormarinayno. casharkanagan oo kamid ah casharada horodhaca ah waxa uu ka hadlayaa nafta bini aadamka Ilaahay uu sameeyay ee uu nafta geliyay ila yiraahdo nafta ama ruuxda noocyada uu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u qaybiyay, waana nafta marka dambe aan rabno inay ku dhaqanto, fahamto, weelayso, nolosheeda ku darsato habka loola falgalayo marka qofku muslimka uu barto magacyada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. laakiin waxaan doonaynaa inaan cashirkan uga hadalno qofka bini aadamka ay ka kooban jir iyo ruux ama naf ka kooban, naftaasu inta nooc ay quraanka ugu soo aroortay si aad u fahamto dabeecadaha dadka Ilaahay u kala sameeyay, dabeecadaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu khalqigiisa iyo dadkiisa uu abuuray uga digay, adiga laftigaagana ay ku noqoto cashir aad ku fahamto qofka dabeecadiisa. sidoo kale waxaan yara taabanaynaa naf walba nooceeda sida uu quraanka u cabiray iyo sidaas uu cabiray macnaha kooban ee laga fahmi karo ee lagu garan karo waxa ay tahay nafta nooceeda. nafafta noocaasa marka ay bini aadamku Ilaahay subxaanahu wa ta'ala geliyay qaar waxa la yiraahdaa an-nafsu al-ammaratu bis-suu, oo ah mid garanaysa waxa wanaagsan ee haboon laakiin cagsigeeda sameynaysa. waxa loola jeedaa al-ammara bis-suu waxaan inay xumaan yihiin way garanaysaa, in laga tagana way garanaysaa oo waxa wanaagsan la sameeyo, laakiin haddana waxay qasbaysaa oo ay ku qasbaysaa qofkii inuu sameeyo waxa aan haboonayn ee ah waxa xun. sida darteed waa naf mar walba ku faraysa, kugu dhiirigelinaysa, qayb ka noqonaysa inay ku tiraahdo naftaadu waxaan samee, oo ayada aad dareemayso inay ku dhiirigelinayso oo ay ku riixayso. waa ka Ilaahay quraankiisa ku dhahay wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. sida darteed waxyaabaha laga magan galo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala bay kamid tahay in naftaadu ay noqoto naf ku hagaysa xagga xumaanta iyo khayr darrada iyo sharta ku hagaysa. sida darteed qofka waxa ku xiran ee nafta ah waxa la rabaa inuu ka adkaado, aysan noqonin naf amarta waxyaabaha khaldan. mid la amaanay waxa weeye mid quraanku uu ku sheegay an-nafs az-zakiyya, oo ah mid mar walba nafteeda ku talagalaysa inay nadiifiso oo ay daahiriso, hadduu khalad ka dhaco hore ka daahiriso, iskuna dayda waxa haboon ee wanaagsan ee quruxda keenaya ee qaayaha keenaya ee sharafta keenaya inay samayso. wata quraanku aragteen qala aqtalta nafsan zakiyatan bighayri nafs, yani naftu marka ay daahir tahay oo ay dambi la'aan tahay oo barimageyda ay tahay oo waxba in loo geystaba aysan ahayn baa laga cabiray. sida darteed waxaa la rabaa adiga naftaada inaad gaarsiiso naf sidaas daahir u ah oo wanaagsan oo dhibaataba aan ka fikirin, dhibaatana aan loola imaan karin. nafta nooceeda saddexaad waxaa la yiraahdaa waa nafta aakhiro kula doodi doonta ee ku maxkamadeyn doonta ee iyadoo kugu marqaati furi doonta waxa aad dunyada ku soo gashay, ee mararka qaar sheegi doonta wixii aad soo fashay markaad dunyada joogtay ama khayr ah ama shar ah, oo iyadoo kugu garqaadi doonta oo ku sheegi doonta. waxa kale oo la yiraahdaa nafta mujaadalada la yiraahdo waa nafta qofka u dhashay muranka iyo qardadacda iyo maanta oo dhan aadan waxba ka dhaadhacsiin karin, waxna aadan fahamsiin karin. mararka qaarna insaanka dabeecadihiisa qaarkood ayba ku jirto inay tahay naftu mid muranka jecel oo dooda jecel. sida darteed Ilaahay waa laga magan galaa adduunyada intaad joogtana inaad noqoto qof muran badan, oo mararka qaar waxaa jira calaamadaha munaafiqiinta lagu garto. waxaaba kamid ah sida Nabiga calayhi salaam sheegay idaa khasama fajar, marka uu rabo inuu kula moormo wuxuu raadinayaa inuu ka adkaado ama inuu kugu xadgudbo, laakiin mar raadinayo inuu hanuun helo ama wadada saxda ah uu soo aado. sida darteed waa laga magan galaa inay naftaadu noqoto mid adduunyadana muran ku galisa
aakhirana kugu noqoto in iyadu laftigeeda kugu marqaati furto ama ayba noqoto midii kugu doodaysay yawma ta'ti kullu nafsin tujaadilu can nafsiha inta adduunyada joogtana waa laga cararaa inaad noqoto wa kaana al-insaanu akthara shay'in jadala qof muran u joog ah oo adduunyada muran la taagan waa sifooyinka nafta ay leedahay mid kamid ah kuwa laga cararana ay kamid tahay waxaa kaloo naftaada lagala cararaa inaad noqotid nooca kale ee qur-aanku sheegay la yiraahdo an-nafsu al-mufrita nafta iyadoo isku xadgudubta iyadoo dulmiga isku samaysa ama dadka ku xadgudubta oo marka dambe aakhira markaad tagto ku gaarsiinayso inaad ka shalayso an taqulu nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi janbillah marka qofka naftiisu hadiiba ay gaarsiinayso inuu marka hore dayaco marka hore meel cidlaa isdhigo marka dambana uu ka shalaayo waxay kuu keeni doontaa inaad noqotid naf iyadoo isku xadgudubtay oo dhibaato isku samaysay xadgudubkeedaasna marka dambe uu gaarsiiyo inay iska shalayso oo iyadu ay iscanaanato waxaa kaloo jirta nafta la ammaanay ee wanaagsan ee la yiraahdo an-nafsu al-mutma'inna oo ah naf xasiloon oo degan oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala adduunyada markay joogtayna uu deganaan siiyey ruuxdeeda marka la sii qaadanayo oo ay aakhiro u gudbayso oo naftii ruuxdii iyo jirkii la kala jarayana waxay u gudbaysaa inay tahay naf degan oo qabow oo xasiloon yaa ayatuha an-nafsu al-mutma'inna irji'i ilaa rabbiki raadiyatan mardiya oo loola jeeda naftan markii horeba ilaahay baa keenay adduunyada keenay markuu adduunyada keenayna wuxuu u keenay inuu ku dulbeero jirkan uu ku dulbeero laakiin marka la ceshanayo waxaa la ceshanayaa iyadoo xasilan oo degan oo raalli iska ah oo ku qanacsan inay intay nooleedna wax wanaagsan ka soo shaqaysa adduunyada rajana ka qabta aakhira haday tagto inay si wanaagsan u noolaan doonto waana darajooyinka ugu sareeya mid kamid oo ah in naftaadu ay noqoto al-mutma'inna mid mar walba iska xasiloon oo adduunyada ku xasiloon sida darteed culimada muslimiinta waxay yiraahdaan cibaadadu nafsiyan waa wax xasilooni keena waana wax qofku raalli ku yahay oo naftiisu ay ku degan tahay macsiduna waa wax fudayd iyo deganaan la'aan iyo wareer keena naftuna aysan marka dambe raalli ka ahayn sida darteed waxaa ilaahay la weydiistaa mar walba inaad noqoto dadka la yiri naftoodu waa naf xasiloon oo degan taa waxay ku keenaysaa marka caafimaadkaagu inuu deganaado noloshaada deganaato bulshada dhexdeedana qof degan oo qiimo ku dhexleh inaad ku noqoto sifooyinka kale oo ay naftu leedahay waxaa weeye nafta la yiraahdo al-maakira waa midda wax shirqoosha ee ka shaqaysa shirqool oo mar walba samaysa inay wax un isku dabagediso wax un ay shirqoosho dadka qaarkood culimada muslimiinta ah iyo kuwa cilmi nafsiga ka shaqeeya waxay yiraahdaan sifada makrigu ma ahan sifo ayada xun mana ahan sifo ayadu ay fiican tahay yani lama oran karo qofkaanu makriga waxa la yiraahdo waa wax xun ama makriga waxa la yiraahdo waa wax fiican labadaba lama dhihi karo yiraahdeen waxa laga fiirinayaa bay dhaheen makrigu waa aalad la isticmaalo aaladaas marka ma waxa uu isticmaalaysaa wax wanaagsan mise waxa uu isticmaalaysaa wax xun saadarteed waxa la caayo waxa waaye al-makru sayyi shirqoolka xun oo aad reerkaaga ama ehelkaaga ama qofka wanaaga ka filinaya aad ku samaysaba inta badan aad iyo aad loo maagay aadna loo qabiixiyay wax fool xun laga dhigay waata ilaahay uu leeyahay walaa yahiqu al-makru sayyi illa bi ahli laakiin hadii aad rabtid inaad samayso makri aad wax ku badbaadinayso oo aad wax ku hagaajinayso ama aad wax ku anfacayso yani mesela muslimiin iyo waxa isdiriraya cadowgoodii waxaad keenaysaa qorshe iyo shax aad ku shirqoolayso cidii aad isleynayso inuu cadowga kugu ahayd laakiin la rabo inaad ku gaarto guul aad rabto inaad muslimiinta ama dadkii aad la jirtay aad ugu keento sida darteed markaad wadankaaga ku anfacayso ummadaada ku anfacayso waxaa laga rabaa inay noqoto wax aan ahelkaaga iyo dadka adiga ehelka ku ah aadan u isticmaalaynin ee aad u isticmaalayso waxa aad wax ku badbaadinayso sida darteed culimada psychology qaarkood waxay yiraahdaan qof maakira hadad wanaag kula dhaqanto oo aad si fiican oo ixtiraam leh oo qadarin kula dhaqanto wuxuu u qaadanayaa waligiis iyo alihiis inuu yahay qof guuleystay laakiin qofka makriga ka shaqeeya waxa la rabaa inaad adigana makrigiisii kula dhaqantid oo aad sida uu sameeyay samayso laakiin waxa loo xiraa laba shardi shardiga koowaad waxa weeye waxa aad sameynayso waa inay noqdaan wax u adeegaya dan guud midda labaadna waxa la rabaa inay noqdaan wax keenaya in aydan ka baxaynin ballamo idinka dhaxeeyo sida darteed dadka qaar ba waxay isku qaldaan ballanta qofka aad la gasho inaad ilaaliso waad ku khasban tahay waana waajib dhaqanka dhagarta la yiraahdo ee qofka inaad dhagarto oo aad marka hore ballanta ku soo qiyaantana sharci ahaanna waa xaraan dhaqan ahaanna waa mamnuuc
laakiin waxaa loola jeeda waxaa weeye kasifada la dhaho makriga ama shirqoolka ama af soomaaliga ereyga shirqool baa ugu dhow waa sifo la adeegsado wax fiicanna loo samaysan karo wax wanaagsanna loo samaysan karo tan ugu xunna waa midda aad ku samayso cidda kaa filanaysa inay wanaag kaa sugaysay yani maalan makriga meelaha mamnuuca ka yahay waxaa ka mid ah qof baa wuxuu kaa rajaynayaa inay wanaag idinka dhexeeyaan waxaa idinka dhexaysa wada shaqayn waxaa idinka dhexaysa shirkad waxbaad shirkad ku tihiin wax kasta oo aad kala hadlayso wuxuu u haystaa inay lilaahi kaa tahay oo ay daacad kaa tahay sidaa darteed mucaamaladaas mucaamalo aad shirqool dhexgelin karta ma ahan sababtoo ah qofkaas wuu ku aaminay kalsooni buu ku siiyey kalsoonida uu ku siiyey inaad ku xadgudubto waxay noqonaysaa khiyaano bay noqonaysaa sidaa darteed ilaahay subxaana watacaala makriga markuu ka hadlayo wuxuu yidhaahdaa mararka qaar wamakaruu wamakar allaahu wallaahu khayru lmaakiriin oo loola jeedo ilaahay subxaana watacaala khalqigiisa wanaagsan ee muslimiinta ah khayr ka shaqaynaya si uu u anfaco mararka qaar wuxuu u sameeyaa qorshayaal iyo fikrado ay ku badbaadayaan oo ka karti sarreysa ama ka miisaan fiican ama ka shax wanaagsan midda ay ayagu dejisteen oo ay samaysteen sidaa darteed haddii aad rabto inaad samayso makri shuruudihii aan soo sheegnay waa inaad mar walba maskaxda ku haysaa ehelkaaga iyo dadka kaa filanayana aadan ku samaynin nin ka mid a reer Quraysh baa wuxuu arkay Abulahab oo keligii meel jooga oo qoyskiisii oo reer Bani Hashim ahaa dhammaantoodna inta la cunaqabateeyey maka banaankeeda la dejiyey aad loo rafaadiyey markaasuu wuxuu arkay shirkii oo loogu tashanayay reer Bani Hashim Abulahab oo fadhiya oo Abulahabna waa taqaanaan waa nabiga calayhi salaam adeerkiis weeye laakiin ra'yi ahaan ka soo horjeeda markuu Abulahab dhaqaaqayba wuxuu yiri ninkan qorshaha uu nala dejinayo waan u baahnayn waana ku guuleysanay reer Bani Hashimna waa isaga celinay waa isaga qabanay qorshahan iyo shaxdan uu nala dejiyay laakiin maanan ku farxeen inuu Abulahab aniga ehelkayga yahay oo aniga uu qaraabo ila yahay laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay inuu ehelkiisa ila shurqoolayo oo ila dhibaateynayo oo qorshihii uu keenayo laakiin ma aha buu dhahay in ehel laga dhigto oo qaraabo laga dhigto yani waxa loola jeedaa meel ay ku fiican tahay makriga waa inay jirtaa meel aysan ku haboonayna waa inay jirtaa xayndaabka aad ku dhex jirayso oo aad ku kala saaraysana waa inaad taqaanaa waxaa kaloo jirta midda taa u dhow ah an-nafs al-makida yani in aad adigaba u samaysan tahay dadka inaad shar ku dhibaatayso oo aad shirqool u dhigto oo aad dhibaato ku samaysato saa darteed inta badan waa la diidaa waana ayadana badaxay ku jirtaa waxyaabaha aan banaanayn innahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kaydan famahil ilkaafiriina amhilhum ruwayda saa darteed qofka inaad sidiisa marka hore dhagar usii diyaariso oo aad qorsho usii diyaariso oo aad ku dulminayso ama xaq uu leeyahay aad ku dhaafsiinayso lama ogola waxaa kaloo nafta wanaagsan lagu amaanaa in nafta la yiraahdo an-nafs al-mustabsira waa nafta indhergaradka ah ee wax garanaysa ee xaaladda ay ku nooshahay qiyaas ka haysata xaaladda ku haboon qiyaas ka haysata khalqiga ilaahay uumay ee koonka ilaahay uu uumayna ka haysata indhergarad iyo fikir iyo si qoto dheer u fiirinaysa waxyaabaha ilaahay uu sameeyey wa fi anfusikum afala tubsiruun bal al-insaanu ala nafsihi basira yani waxaa la rabaa inaad noqoto naf indhergarad ah oo xaaladda koonka fiirin kara naftiisa fiirin kara geela fiirin kara badda fiirin kara khalqiga ilaahay siduu u kala bedelay luqadooda iyo dhaqankooda iyo habeen iyo maalin uu isu dhaafsiiyey fiirin kara waa inaad noqoto nafafta aan wanaagsanayn waxaa ka mid ah nafta la yiraahdo doqonta safiih an-nafs as-safiih yani naf doqon ah oo aan garanaynin waxa ay haboon tahay inay samayso aan garanaynin xaaladda ay ku dhex jirto waxa ugu haboon aan garanaynin ficilkeeda maxaa u wanaagsan qowlkeeda maxaa u wanaagsan oraah ahaan maxaa u wanaagsan ama labadaba u wanaagsan waad aragtay qof aad taqaano ama qof aad garanayso oo si ula noolaatay oo markuu hadlayo hadal xun ku hadla ficil markuu sameeyo ficil xun sameeya oo dadka markay cudur daarayaan ay oranayaan wallahi waa dabeecadiisa oo sidaas uu isaga hadlaa ama sidaas ayba dhaqankiisa tahay xumaan ulama jeedo yani Soomaalidu mararka qaar waxa laga yaabaa inay amaan ula jeedaan ama cudur daar ay ku raadinayaan laakiin nafta safiiha la yiraahdo ee doqonta naf wanaagsan ma ahan qofka saxda waxa la rabaa waxa qowlkaaga hadalka afkaaga ka soo baxay inuu ku xisaabsan yahay ficilka aad sameynayso uu ku xisaabsan yahay haddii aad isku wax sameynayso ama ficil iyo hadal wada sameynaysana waa inay ku xisaabsan yihiin sida darteed qofka naftiisa doqomaysanaya ama ficilada doqonka ku dhaqmaya lama amaano lamana jeclo ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ويقفك وحجاريا إنه حتى دنتيسا أقوم ويحجارسينيسا إنه سن إلهي آمنين وحجارسينيسا إنه سن دين تكون رقمين وحجارسينيسا إنه سن وحا صحدة وسن قادنين أو سن كل رقمين
heerka kasii xuntaa waxaa weeye nafta la yidhaahdo nafta gardarrada u samaysan oo dulmiga jecel, nafsi dhaalima. waxayba jeceshahay inay wax dulmiso, waxay jeceshahay xuduudeeda inay dhaafto, waxay jeceshahay inay mar walba waxa loo diiday ay samayso, mararka qaarna ay nafteeda ku xadgudubto ama ay khalqiga ilaahay ku xadgudubto ama bulshada oo dhanba ay xadgudub ku samayso. taana marka dambe way shalaysaa oo nolosheedana shalay baa u dambeeya. walow anna likulli nafsin dhalamat ma fi lardi laftadat bih. macna waxaa laga doonayaa qofka muslimka in waxyaabaha iska ilaalinaya inay tahay in naftiisu ay noqoto naf gardarrada jecel oo dulmiga jecel oo dadku inay isdulmiyaan xataa mararka qaar ku farxaysa. waana waxyaabaha ilaahay laga magangalo ee aan wanaagsanayn. waxaa jirta naf la yidhaahdo nafta mar walba waxa macaan kale iska jeclaata, mar walba waxa fiican iska aada, mar walbana iska dhaan raac iska ah, nafsul muraawida. yacni wax unbay maanta iska doonanaysaa, damaca maamula. haddii shahwo u baahato shahwadii iska aadi, haddii hadal xun u baahato hadalka xun bay iska aadi. mar walba wixii maskaxdeeda kusoo dhaca unbay hore ka aadaysaa. waraawadathu allatii huwa fii beytiha can nafsi. yacni waa wax aan wanaagsanayn wiilkii gurigaaga joogay ee maxaan ku irahdaa qurux inta ka fiiriso haweeneydaas ay rabtay ninkeeda inay khiyaanto, nebi yuusufna ay dembi geliso. yacni wax xun weeye qofku in waxay kusoo dhacaba uu hore ka samayn karo oo damac raac uu noqdo oo damaciisa uu iska maamulo. waxaa kaloo la jeclayn naftu inay fulay noqoto oo naf maanta oo dhan shakisan oo waswaasan oo cabsanaysa oo baqaysa inay noqoto lama rabo. waxaa la rabaa naftu inay noqoto naf waxa ay ku fikirayso ka fiirsata, haddii ay ku qanacdana samaysa. laakiin cabsida ku dhisan, malaha ku dhisan, shakiga ku dhisan lama jeclo. fawjasa fii nafsihi khiifatan muusa. yani naftaada waxaa la rabaa inaad cabsida badan iyo walwalka farada badan aad ka ilaaliso ee ku dhisan qiyaasta malaha ah ee aan ku dhisnayn xog sax ah ama macluumaad sax ah aan ku dhisnayn. waxyaabaha aanan la jeclayn nafta waxaa ka mid a nafta la yidhaahdo nafta bakhiilka ah ee xoolaha jecel ee inay wax ka baxaan diidan, ee waxa ay bixinaysa dhibsata, ee dadka inay wax siisa dhibsata, mararka qaar gaarsiisan xataa inay macni wax kasta oo wanaagsan in wax ku bixiso diida, oo gacanteedu ay adag tahay oo gacan adag ay noqotay. lamana jecla. ilaahayna subxaana watacaala ma amaanin. waman yabkhal fa inamaa yabkhalu can nafsi. xoolahan aad diidayso oo aad inaad bixiso diidayso wax aad aduu naftaada u diiday waaye. sababto haddaad bixiso ajir baa ka heli lahayd, khayr baa ka heli lahayd, sumcad wanaagsan baad ummadda uga dhex heli lahayd. waxaa kaloo ayadana la mida nafta la yidhaahdo annafsi shaxiixa oo meesha kasii daran ah oo bukhliga waxaa kasii dambeeya qofka inuuba sii jeclaado yani xoolo jaceylkiisa inuu gaaro. waa cudur markii bukhliga laftigiisa uu kugu sii noqdo, cudur uu kugu sii noqdo. culammada qaar baa waxay yidhahdaan bukhligu waxaa weeye qofka jecel inaysan waxba ka bixin. shaxiixuna waa qofka dad waxaysa siinaya dhibsanaya. laba qof waxaysa siinaysa hadduu arkayo waxaa laga yaabaa inuu isdhaho warkaa muxuu xoolihiisa ugu cayaaraya. sida darteed waxyaabaha ilaahay laga magan galo oo ilaahay subxaana watacaala la weydiiso inuusan kugu ridin bay ka mid tahay nafta bakhaylka ah iyo nafta shaxiixa ah. waxaa kaloo la necab yahay nafta la yidhaahdo annafsa naakitha, nafta jecelba ama uga samaysanba ballanta markay gelaysa inay kasii baxayso usii qorshaysan tahay, ama ballanta markay gelaysaba maskaxdeeda ku jirto inay wax sirayso, daacaddu ay ku yar tahay, ballan fulintu ay ku yar tahay. waana dhaqamada uu qur-aanka aad iyo aad u ceebeeyey bay ka mid tahay. waman nakatha fa inamaa yankuthu calaa nafsi, waman nakatha fa inamaa yankuthu calaa nafsi. sidaa darteed naftaanu haddii ay ku barto ballanfuryada oo waxyaabaha aadka iyo aad ceebta u ah, qofkana sharafka iyo maamuuska iyo suunadda iyo qiimaha uu bulshada ku dhex lahaa ka tirtirayo bay ka mid tahay. waxaa la ammaanaa nafta la yidhaahdo annafsu lmu'thira, waa nafta wax deeqda ee marka koowaad waxay haysata raalli ku ah, waxa dadka haystana uusan damac uga jirin. yani 3 sifay leedahay naftan la yidhaahdo annafsu lmu'thira. waa nafta wax quurta. marka koowaad waxa ay haysatay raalli ku tahay. marka labaad dadka waxay haystaan damac ugama jiro. marka saddexaadna waxay awood u leedahay waxa ugu yar oo ay haysato u soo haray inay bixiso. waana darajooyinka ugu sarreeya oo marka la joogo wax bixinta la gaaro. wayuthiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa. yani waxaa la rabaa waxa adiga mararka qaar u baahan tahay inaad bixin karto. dadka yaqaana yani farqiga u dhexeeya deeqsinimada iyo iithaarka waxay yidhaahdaan deeqsinimadu waa waxa aad ka maaranto inaad bixiso, laakiin iithaarku waxa weeyaan waxa aad ka maarmin inaad qoorto. yani waxa aadan adiguba ka maarmaynin inaad sii bixin karto oo aad gaarsiin karto, dhihi karto maanta intaasoo cuntaa baan haystaa ama 100 shilin baa igu haray laakiin waan quuray, waan bixiyey. laakiin deeqsinimadu waxay dhaheen waa waxa aad ka maaranto oo baahi degdeg ah aadan u qabin inaad bixin karto.
nafta kaloo aadka loo ammaanay waa nafta la yidhaahdo annafs asawiya, nafta wanaagsan ee toosan ee isku hagaagsan ee kala garanaysa waxa xun iyo waxa dhowrsanaanta ah. wa nafsin wamaa sawaaha faalhamaha fujuuraha wa taqwaaha. waa nafta cadaaladda jecel, sinaanta jecel, miisaanka jecel, mar walba garanaysa waxa toosan ee ku haboon iyo waxa aan toosnayn ee aan naf ahaan iyo qof ahaan ku haboonayn. nafta kale waxaa la yidhaahdaa waa nafta la yidhaahdo allawaama. waa nafta mar walba annafs allawaama. falaa uqsimu binnafsi allawaama, yacni waa nafta iscanaananaysa, waxayna isku canaananaysaa waxay og tahay inay khayr ahayd baysan samaynin, hadhowba waxay leedahay wallaahi waxaas khayr bay ahaayeen, maxaan u samayn waaye. waa meesha laga dhiirigelinayo nafta in la baro inay naftu ahaato naf go-aanka ay gaarto ku dhaqmi karta, khayr hadday damacdana isla markiiba u dhaqaaqi karta. nafta la ammaanay waa nafta la yidhaahdo nafta caadilka ah ee mar walba cadaaladda jecel, oo bulshada oo dhan waxa ilaahay subxaana wa tacaala amray iyaduna qayb ka ah. in allaha yaamuru bilcadli waalixsaan. yacni saa darteed waxaa la rabaa inaad barto naftaadu inay mar walba jeceshahay cadaaladda oo ay ku roonaanayso inay cadaaladda ka shaqayso. sidaa darteed waxaa la rabaa diinta islaamka marka la ilaalinayo oo la waardiyeynayo, waxyaabaha lagu waardiyeeyey waxaa ka mid a kow in adu naftaada taqaano ciladaha ay leedahay, oo intaasoo nooc oo ciladaha oo naftu leedahay intaad daraasayso, naftaadana daraasayso, inaad ka ilaaliso oo aad ka waardiyeyso. laba, waxaa lagaa rabaa inaad barto naftaada waxa wanaagsan haddaysan marka horeba u dhalanin oo dabeecad ahaan u lahayn, inaad ku qasabto inay qeybta wanaagsan oo nafta aan soo sheegnay inay yeelato. waayo diinta ilaahay subxaana wa tacaala sida sheekh alislaam ibnu timiya uu leeyahay waxay u baahan tahay kitaab hanuunsan oo ku hanuuninaya oo adiga ku ilaalinaya oo jidka toosan kugu aadinayo. kama maarmayso, wayna u baahan tahay. waxay kaloo u baahan tahay seeftii u gargaari lahayd ee kitaabkaas nolosha kusoo leexin lahayd ee quwad iyo xoog u noqon lahayd. wakafaa birabbika haadiyan wanasiira. wallahu tacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxidaad wada taqaniine isaga waduudahan tashiga lala wadaagayne, isagan wuxuu doonayaba cidi la waastayne, waxba kama qarsono qalbigu wahan hadduu yeesho, wixii weliba wow waadax iyo waasac maalinaahe, alwakiilu magaceeso waa warisaan dhimane.